gaadiidka oo ku soo badanaysa Soomaaliland iyo wadooyinka oo cidhiidhiya ayaa waqtiyadan ugu dambeeyay waxa ay sababaan shilal joogto ah oo ka dhaca magaalooyinka gudahooda gaar ahaan magaalada Hargeysa iyadoo sidoo kalena gaadiidkaasi tirada badan leh oo imika kor u dhaafay 4,000 oo gaari ay kalifeen in wadooyinka magaalada Hargeysa xilliyada shaqada laga soo rawaxayo laga gudbi kari waayo oo ay gaadiidku isku wada xayirmaan kuwani waa muuqaalo kamid ah dhacdooyinkii maanta duhurnimadii ee magaalada Hargeysa iyadoo qaar kamid ah ciidamada nabadgelyada wadooyinkuna ay ka warbixiyeen hawsha ay saaka ka qabanayeen goob ay ku kala horayeen gaadiidka Mukhtaar Maxamed Cabdullaahi balada Mukhtaar bal ka waranay saaka halka waxaan u nimid gaadiidka ayaa aad u badan daadka ayaa soo xayiray wadadii la mari jiray ee gaadiidka fudaydin jirtay kadib waxay sameeyeen xeerka nabadgelyada wadooyinku ma ogola in wadada bridge-ka la isku dul dhaafo saddex wada ayay ka dhigeen article-kaasi ayaan ma ogola in baabuurtu ay isku dhaafto bridge-ka dushiisa dabeetana bridge-ka afkiisa koonfureed baanu joognaa waxaan celinaynaa haadadkan qaladka soo maraya ayaanu ka celinaynaa wadada labada haada ayay 3 iyo 4 ka dhigayaan taasaan la dagaalamanaa si ay dadweynuhu wadada u maraan kuwa lugta iyo kuwa gaadiidka wataaba habeen horena shil ka dhacay magaalada Hargeysa gaar ahaan jidka isku xidha xaafadaha Xera Awr iyo idaacadda ayaa waxa uu ahaa markii ay 8 gaari meel quraata shil cidi ku dhimanin waana shilkii ugu la yaabka badnaa ama ay dadku su'aasha ugu weyn iska weydiiyaan ee ka dhaca gudaha magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland mar kaliya waa kan wiil dhalinyaro ah oo tilmaamay inuu goobjoog ka ahaa markii shilkani uu dhacayay magacaygu waa Maxamed Awlise shilku wuxuu dhacay xaga tolkoodii barkii habeenimo waxa soo maray gaari sugsukiya gaari kale dhacdo xagga inaga xigaama ku garanaysa ayaa wadada soo socday isagu wadada soo kurayay oo xagga Xera Awr ku cayay marka kan uu ka mid Xera Awr oo bana gaarigu ka gaariga marka waxa galay gaariga sugsukiya halka uu soo jiidinay sugsukiya wata dhinaca taala tirada gaadiidka ee Soomaaliland waqtigan ugu dambeeyay soo gaarayso aad u fara badan isla markaana 4,000 oo gaari kor u dhaaftay inta ugu badan in ay magaalada Hargeysa socdaan ayaa waxa ay sababaan shilal kala duwan iyadoo ay kala badan yihiin tirada gaadiidka Soomaaliland iyo jidadka gaar ahaan magaalada Hargeysa dadka iyo gaadiidka oo ku soo badanaya magaalada Hargeysa ayaa waxa ay carqalad ku yihiin isgagooshka iyo isu socodka gaadiidka iyo dadka iyadoo traafiga ama se isu socodka dhinaca gaadiidka ee wadooyinka magaalada Hargeysa oo aad u badan yahay waqtigan gaadiidkan ayaa ugu badan ka raaxada ee yaryar iyadoo qof kastaaba uu doonayo inuu ku soo shaqo tago ama se uu ku tago magaalada meelo kala duwan oo dana u leeyahay mararka qaar koodna waxa xayirmay isu socodka gaadiidka oo ay sababaan iyagoo dhamaantood doonaya inay mar quraata qof waliba danta uu leeyahay uu gaadho tusaale ahaan waxaan imika kor taaganahay bridge-ka weyn ee magaalada Hargeysa kaasi oo qodobo kamid ah shuruucda wadamarista Soomaaliland aanay ogolayn inay wax ka badan 2 gaari isku dhaafaan hase yeeshee mararka qaar kood ay dhacdo in ilaa iyo 3 ay samaysmaan kadibna gaadiidkaasi uu isku xayirmo oo dhinacna u kala socon waayo sidoo kale waxa arintan garab socda shilal xoog leh oo waqtiyadan ugu dambeeyay ka dhaca magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland iyadoo habeen horena shilkii ugu xumaa ee ka dhacay magaalada Hargeysa uu ahaa 7 gaari ilaa 9 gaari tiro u dhaxaysa oo hal meel shil ku wada galay iyadoo ilaa imikana sababta la garanayn Khadar Maxamed